marka waa arin la yaab leh ani guul baan gaaray waana cararay inaan cararay waa guul ah waxaan malaynayaa guushan dadku isku soo aqoonino sida ay faana u taqaan guush iyo sida ay bini'aadamka kale guush u yaqaanaan yani guul waxa la yiraahdaa in ama ninku soo weeraray ama aad weerartay aad meeshii ka qabsato ama ninku soo weeraray inaad iska celiso laakiin ninka ku soo weeraray intaad ka carartay inaad magaalooyinka uga baxdo oo tiraahdo shacabkayga iyo magaaladii baan badbaadiyay waa guul ay faana taqaan guul aynu la naqaan ma ah soo dhawaada saaxiibayaal barnaamijka xog waran ayaa daawanaysaan waxaan weegaynaa xaaladaha Itoobiya si guud iyo dagaalada ka socda gobolka Amxaarada ee dalka Itoobiya kaasoo wali aan sadamaanin haddaba aan ku horeeyo xaaladda si guud Itoobiya ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo shalay ka qayb galay fagaaro ciidamo ka tirsan ciidamada ka tirsanaan doona ciidamada Itoobiya kala duwan oo soo xidhay ayuu Abiy طبعا هذا لك دوون وكتشيدية مدرسة أبي أيها لحسوستا إن أنتي وتشوي وسمعتي عندما يستجد سجونيا وأمر قاطع سجو تليها جود عندما أمر تليها أما درس وسارها وقفك أمر هذا طبعا أي كفلان عندما ذنا نقولنا طبعا السيد الشيء عندما سجونيا وتبرن ويجو طبعا جاردينيا ورس وسارها طبعا بدوس وتشيدني haddaba sidoo kale dagaalo ayaa ka dhacay la leeyahay isla gobolka Amxaarada shalay oo dhaxmar faana iyo ciidamada militariga sidoo kale afayeenka dawladda ayaa hadlay baarlamaanka laftiisa waxa sheegay inay ka fariisan doonaan xaaladda gobolka lagu soo rogay xaaladda 6 bilood ee emergency ama loo yaqaan xaaladda degdega intaas oo dhan ayaan doonaynaa barnaamijka ku eegno ku soo dhawaada Cabdiraxmaan Garafeeg oo dhigaala isla falanqeynna barnaamijka Cabdiraxmaan soo dhaw bismillaahir rahmaanir rahiim muhidiin وسلامي هذه دعوة وانا دوحي حالة أحمرضا قررنا جرحان دجالدي واحد جري عيدا فربضن والدجان كنا كجسمنا حدودها يجوا كلا دون أو حديث سيد الجودي دجحبور قبر دهر أو مال مهم بينتي دجال قبل الوضي الولي جوارد اللي يقان أورال كي تكنيكوي كي جوارد كلا جاشامان فربضن وطو حاجة وحيس عيدا كاسي laba meelood buu ka galay Axmaara Kilil ama deegaanka Axmaarada waa dhankan koonfurta xaggan iyo Wallo ay oramada xadka kale yihiin iyo dhanka kore maxaan ku dhahay galbeedka xagga Gojaam ay ka soo galeen oo afartay sii dhaxmareen xaggan iyo deegaanka Tigray baa la sii dhaxmaray xaggan laga wareegay deegaankaas goob lagu magacaabo Makana Zalam oo Gojaam hoostimaad dagaalkii horeeyay ka bilowday oo jabhadan faana ay deganeed dagaal xun oo muddo badan socday dagaalka ciidamadana kuwii hadda socday xaggan ka tagay kuwii yacni hore way qabsadeen Baxardaar iyo Gondar dhulka waa la qabsaday ciidamadii xaggan ka tagay dhulkii loo qorsheeyay inay ka dagaalamaan xagga Makana Salaam bay ka galeen Axmaara Kilil in deegaanka dhan waxa la wareegtay faana intiisa badan marka waa in hadda dib u xoreyn lagu sameeyo dib looga qabsado meeshii u horeysay ka galeen xaggaas ahayd waxay Makana Salaam oo Gojaam ka tirsan saldhig weyn oo jabhada ay ku lahayd halkaas la isku dagaalay dagaal aad u khadaan ba ka dhacay dagaalkaas uu soo gabagaboobay waxaana gacan ku hayntii deegaanadaas la wareegay ciidamadii militariga ahaa ciidamada militariga ah dhintay marka dagaal wax la sheegi karo oo kala dhintay in dhulkii la qabsaday meedka iyo furashada iyo wixii uu karo raamoyaan tiraaciimin lama soo sheegin lamana sheego ilaa hadda intii dagaalka Axmaarada u dhaxeeya iyo dawladda federaalka uu socday iyo macalkii Tigreega lama sheegaynin laakiin markay dhamaadaan baa la soo gabagabeeyay nus milyan baa la dhig iyo 2 milyan iyo 100,000 iyo hadda waxa la yiri waxa ku dhintay dagaalkii Tigreega iyo maxayga nus milyan yaa ku dhimatay ama 1 milyan yaa ku dhintay waxa warbixinta lagu darayaa markuu dhamaado marka qiyaas baa la qaadan markii magaalo kasta 100,000 la dhaho قياستينا ولي مينا قاعد نحكي حليا قادن لهين دغالكينا wuu socdaa laakiin markii la iscuno qolaan qabsanaysa meesha militariga marka meeshaas qabsaday dhankan kale xaggan Gondar iyo Baxardaar iyo waa laga qabsaday iyagana marka dhulkii dagaalka noocaasi uu ka socday waxa ka hadlay afayeenka dawladda wuxuu yiri raaci hore waan gabagabaynay waxaanana ku qabanay buu yiri si waqti kooban oo aad iyo aad u kooban yaan ku qabanay faana dhankeeda kale way hadashay laga satulu
oo ah afayeenka xukuumadda wuxuu sheegay boqolkiiba boqol in raacii hore ama wejigii hore ee dagaalka axmaarada ay guuleysteen oo dowladdu ay qabatay amniga intaa waxaa ka soo horjeeda oo iyaduna warar kala wada oo soo saartay war-saxaafadeed ama warmartiyeed aad u ballaadhan sheegtayna inay guula ka gaadhay dagaalka raaciisii hore boqolkiiba 75 ay ku hayaan deegaanada ay leeyihiin ama axmaaradu ay leedahay gacanta jabhadda faano waxay yidhaheen dhulka aanu anagu hayno mooyaane talaade macalmiyigay tirsanayaan dhulka aanu anaga hanay mooyaan dhulka kale waxaa jooga bay yidhaheen milatarigana waxaa loogu talagalay bay inay xuduudaha ka dagaalamaan milatari inuu xafiis fadhiisto oo madaxtooyadii deegaanka axmaarada iyo xafiisyadii iyo wasaaradihii uu rag ciidan oo milatari iyo qalinka qabto oo uu fadhiisto sharciga Etoobiyana kuma jirto midka caalamkana kuma jirto midka bini'aadamkuna kuma jirto waa sida faana ku doodayso waxay yidhaheen milatarigani ha naga baxo maamulkii axmaarada ha loo yeedho shacabka axmaarada maamul ha dhistaan xuquuqdooda iyo waygooda iyo dastuurku wuxuu ogol yahay ha sameeyaan waa qaabka ay ku doodayaan milatarigu midaas bedelkeeda deegaanka uu qabtay isaga maamulayo xukun degdeg ah la isaga maamulayo milatarigi baa dhulka hadda ka talinaya warar kale waxa soo baxaya sheegaya in madaxweynihii axmaara kilil yikle kefle loo diray deegaankiisii oo ku noqo baxardaarna ciidankii milatariga baa qabtay laabo milatariga adigoo kaashanayana shacabkii iyo hay'adihii maxaan ku dhahay dawliga ahaa iyo systemkii maamulay BB deegaanka ku soo celi ninkaas waa ka cudur daartay ku xigeenkiisii iyo saraakiil fara badan oo raggii uu maamulayay ahaana way baxeen oo military iyo faana wax dilay lama garanayeen waa laayay xaaladiisa amni isagoo u baqayana wuu diiday ninkaas uu ka cudur daartay in deegaankiisii ku laabto wuxuu marka ku yahay maxaabiis xabsi guri nin haduunan deegaankiisii uu laga soo masaafuriyo waa xabsi guri meel kasta uu joogaba wuxuu xabsi guri ku yahay magaalada Addis Ababa ninkaasina halkaas u joogaa taas bedelkeeda waxaa dowladtus sameeyay ninkii la yiraahdo Abiy Ahmed jananku waa nin aad iyo aad looga fajacay maalinta ay ugu daranteed isleedahay wadanku waa burburay waa kala tagay waxba kuma aha isagoo kubad ciyaaraya inuu soo bandhigo waxyaabaha lala yaabay weeyaan shalay iyadoo dagaalada noocaas ay dhacayeen bedelkeeda wuxuu sameeyay dowladtus military wuxuu sameeyay ciidamo aad mooday inay dhowr iyo 10 bari maxaan ku dhahay la diyaarinayay qaabkay wax soo bandhigayaan iyo naqshada iyo waxayay dhaakadhaakood iyo hanjabaad buu jeediyay xuna ku yiri waxaanoo gurdan iyo military iyo tababarka iyo wixigana wadamada dariska waxaan dhihi lahaa khalkhalina danta Ilaahay wala garan waayay ma Eritrea la hadlaya ma Kenya la hadlaya ma Suudaan buu la hadlaya cid ay hadda xinif ka dhaxayso taagan oo militariga uu ugu goodiyo wala garan waayay axmaara kilil buu laftooda ka wada lama garanayo khudbadahaas oo aad hadalhayn u yeeshay buu Abiy Ahmed sina meeshaas ka jeediyay dhanka kale wadamo fara badan oo safaarada ku leh Addis Ababa oo ka mid yahay Mareykanka New Zealand Australia Ingiriiska Japan waxay soo saareen war saxaafadeed Ethiopia yani kula hadlayaan inay qulqulatooyinka ama shaqaaqooyinka axmaara kilil iyo oroma kilil ka jira la xaliyo xal loo keeno sidoo kalena waxay ku dareen baaqoodaas in deegaanada Tigreega ee la haysto iyagana xal laga gaadho waxyaabaha ka socda sida la socotana axmaaradu wali waxay qori afkii ku haysataa deegaano kamid ah Tigreega oo dastuurku sida uu sheegayo Tigreega ay kamid tahay waxyaabahaas oo dhan oo aad u walaaqan yaa ka jira deegaanka axmaarada iyo guud ahaanba Ethiopia meel ay ku dambeyn doontana si toos ah cid u saadaalin ma jirto markaan soo gudbo baarlamaanka kulmaya baarlamaanku wuxuu ansixinayaa qodobadii ay golaha wasaarada ama maxaan ku dhahay cabinetka Ethiopia ay hore u jideeyeen ee dhaqan galay ah ee lagu shaqeeyay in ciidan military ah oo xaalad degdeg lagu soo rogo axmaara kilil cabinetka ansixiyay wayna dhaqan galiyeen oo ku talaabo qaadeen in muddada 6 bilood ay shaqadaasi socoto oo wadankaas militarigaasi uu jiiro iyadana
waxaa ka shaqeeyay iyadana militariga waxaa shaqeeyay kabineetka ansixiyay iyadana way dhaqan gashay labada qodob iyo qodobadii kabineetku uu ka hadlay maalinta dhaweyd iyo miisaaniyadaha ku bixi golaha wasiiradaha iyo miisaaniyadaha ku bixi doona iyo kililada oo miisaaniyada in looga soo gogooyo lagu wada dagaalkaas iyo kharashkii ku bixi lahaa iyo xaaladaas degdeg ah iyay baarlamaanku jideynayaan baarlamaankuna berri iyay ka kulmayaan ay ka fadhiisanayaan hawshaas si ay ugu ansixiyaan sidoo kale waxaa ku jirta waxyaabaha la filaya inay baarlamaanku iyagana ansixin doonaan in diyaarad lagu galo drone ah kililka axmaarada oo lagu haddii ay gaadho oo waqtigu ama yacni duruuftu ay dantu ku qasabto in diyaarad loo adeegsan karo jabhadahaas gacan ku qabashadooda midda kale kolkii la isbarbar dhigay leeyahay yacni axmaaro ama faano guusha ay sheeganaysa ay leedahay waan gaadhnay maxay tahay waxaa la sheegaya ama waxay ismaya waxay leeyihiin waxaan uga baxnay magaalooyinkii lanaga dumin lahaa marka waa arrin la yaab leh yani guul baan gaadhay waana cararay inaan cararay waa guul ah waxaan u malaynayaa guushan dadku isku sii aqoonino sida ay faana u taqaano guusha iyo sida ay bini aadamka kale guusha u yaqaanaan yani guul waxaa la yidhahdaa in ama ninku soo weeraray ama aad weerartay aad meeshii ka qabsato ama ninku soo weeraray inaad iska celiso laakiin ninka ku soo weeraray intaad ka carartay inaad magaalooyinkii uga baxdo oo tiraahdo shacabkayga iyo magaaladii baan badbaadiyey waa guul ay faana taqaano ee guul aynu la naqaano ma ah yahay inta ayaan jeclaan inaan kusoo afmeero barnaamijka oo daawanayseen barnaamijka ugu horreyn oo daawanayseen oo ku eegayna xaaladaha Itoobiya iyo dagaalada ka socda gobolka Amxaarada iyo dabcan fadhiga la leeyahay baarlamaanka ayaa ka fadhiisanaya xaaladaas sidii looga hareysan lahaa wixii laga yeeli lahaa gobolka Amxaarada militariga iyo ciidamada faanana dagaalada dabcan dhaxmare iyaguna sidoo kale ka dhacay gobolkaas intaas ayaan ku saafmeeraynaa inta barnaamijka midka xiga ku kulmaynaa sida ay noo galeen